Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka xogaha iyo xaqiiqada isboortiga oo aad kala socotaan janalkayga Bashiir Maxamuud Beerdaro waxaynu ku soo qaadanaynaa kooxda xigta waxaana ay noqon doontaa kooxda kubadda cagta Real Madrid oo ka mid ah kooxaha ugu taariikhda weyn ee qaaradda Yurub ku soo dhawaada astaanta kooxda kubadda cagta Los Blancos-ka Historia que no existe, historia por hacer, porque nadie resiste tus ganas de vencer. Ya salen las estrellas, Guillermo Chamartín, tenemos así de cerca los caes hasta ti. Llevo tu camiseta pegada al corazón. Los días que tú juegas son todo lo que soy. Ya corre la saeta, ya canta mi Madrid. Soy lucha, soy belleza, el grito que aprendí. Madrid, 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 para Madrid, y nada más, y nada más, para Madrid. Historia que no haddii aynu ku bilowno kooxda kubadda cagta Real Madrid ee xilli ciyaareedkan 2018-19 waxa ay kaga jirtaa kala sarreynta La Liga dalka Spain kaalinta lixaad oo uma wacna kooxda kubadda cagta Real Madrid qaabka wax u socdaan waxaana ay kooxdu soo martay isbeddello kala duwan oo ku aadan dhanka macallimiinta oo macallimiin dhowr ah kooxdu ay isku daba mareen kooxda kubadda cagta Real Madrid booskii lixaad ay ku jirtaa 13 kulan oo ay ciyaartay xilli ciyaareedkan waxa ay adkaatay 6 ka mid ah 2 jeer Braga ayaa gashay 5 ayaa laga adkaaday 20 gool ayay dhalisay 19 gool ayaa laga dhaliyay hal gool ayaa u soo haray 20 dhibcoodna booska lixaad ayay ku fadhisaa kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Real Madrid haddii aynu eegno xidigaha ugu bandhiga fiican ee dhanka La Liga dalka Spain kooxda kubadda cagta Real Madrid waxaa ka mid ah Karim Benzema oo 5 gool dhaliyay waxaana gool inuu dhalay ay ku qaadanaysa 200 oo daqiiqo hal caawin ayuu ku sameeyay 102 daqiiqo 48 shudood gool loo filan karo ayuu sameeyay xidiga lagu magacaabo Karim Benzema xidiga kale ugu bandhiga fiican kooxda waa Sergio Ramos 4 gool ayuu dhaliyay gool inuu dhalayna waxay ku qaadanaysa 293 daqiiqo 170 daqiiqana hal caawin ayuu ku sameeyay 60 boqolkiiba shudood gool loo filan karo ayuu sameeyay xidiga kale ugu bandhiga fiican kooxda kubadda cagta Real Madrid waa Gareth Bale 3 gool ayuu dhaliyay waxaana gool inuu dhalay ku qaadanaysa 304 daqiiqo xidigani 912 daqiiqo ayuu ku sameeyay 2 caawin 91 shudood gool loo filan karo ayuu sameeyay xidiga lagu magacaabo Gareth Bale kooxda kubadda cagta Real Madridna waxaa laga dareemayaa saameynta macallinkii kooxda isaga tagay ee Zinedine Zidane iyo CR7 oo kooxda gaabis ballaaran ku yimaaday maadaama Sergio Ramos uu ka mid yahay xidigaha goolasha dhalinaya isla markaana kooxda caawinaya waana mid ka mid ah kabtanada ugu fiican ee qaaradda Yurub haddii aan eegno jadwalka kooxda kubadda cagta Real Madrid ku soo foolkale bisha December waxaa ka mid ah waxa ay 7 December la ciyaaraysaa La Liga dalka Spain kooxda Valencia kulan adag sidoo kale Khamiis 6 December waxay la ciyaaraysaa kooxda lagu magacaabo Melilla waana kulan qayb ka ah Copa del Rey sidoo kale Axad 9 December kooxda kubadda cagta Huesca ayay la ciyaari doontaa Spanish La Liga dalka Spain Arbaco ayay la ciyaari doontaa kooxda CSKA Moscow tartanka
horyaalada Yurub ee UEFA Champions League groupka G ayayna isku arki doonaan. Sidoo kale waxa ay ku madalsan yihiin kulan La Liga oo dhici doona 17 December. Kooxda kubadda cagta ee Real Vallecano kooxda kubadda cagta Real Madrid jadwalkeeda Decemberna sidaa ayuu taxana u ahaan doonaa. Haddii aan ogno xidigaha ugu bandhiga fiican dhammaan tartamada kooxda kubadda cagta Real Madrid waxaa ka mid ah Karim Benzema oo 8 gool dhaliyay, Gareth Bale oo 6 dhaliyay, Sergio Ramos 4 dhaliyay, Marcelo oo 3 dhaliyay, Isco 2 gool dhaliyay, Marco Asensio 1 gool dhaliyay, Dani Ceballos 1 gool dhaliyay, Dani Ceballos oo 1 dhaliyay, Mariano 1 dhaliyay, Casemiro 1 dhaliyay, Toni Kroos oo 1 dhaliyay, Vinicius Junior oo 1 gool dhaliyay, Lucas Vazquez oo 1 dhaliyay. Waana xidigaha dhammaan tartamada ugu bandhiga fiican kooxda kubadda cagta Real Madrid. Haddii aan eegno achievementiga guulaha kooxda kubadda cagta Real Madrid ay gaarto waxaa ka mid ah waxa ay qaaday 13 jeer tartanka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League, 33 jeer waxa ay qaaday Spanish La Liga dalka Spain, 19 jeer waxa ay qaaday Spanish Cup, 10 jeerna waxa ay ku guuleysatay Spanish Super Cup. Kooxda kubadda cagta Real Madrid safkooda wuxuu ka kooban yahay 24 ciyaartoy, celceliska da'doodana waa 26 boqolkiiba, 12 boqolkiibana waa ciyaartoy ajnabi ah. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ciyaartooyda u dheeleysa. Haddii aan eegno safka kooxda kubadda cagta Real Madrid ciyaaryahanka ugu weyn waa xidiga lagu magacaabo Luka Modric kaas oo 9 December 1985 dhashay, waana 33 jir u dhashay wadanka Kroatia. Xidiga ugu da'yar ee kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Real Madridna waa xidiga lagu magacaabo Vinicius Junior kaas oo July 12 2000 dhashay, waana 18 jir u dhashay wadanka Brazil. Waana xidiga ugu da'yar ee kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Los Blancos-ka. Hogaamiyaha kooxda kubadda cagta Real oo isbedelo badan ay ku dhaceen dhanka macallimiinta. Macallinkooda haatan waa Santiago Solari kaas oo ah 42 jir, waxaana kooxda loo magacaabay November 13 2018 qandaraaskiisana wuxuu dhacayaa 30 bisha 6 2021. Haddii aan eegno haliyada soo mara kooxda kubadda cagta Real Madrid oo aad u badan waxaanu ka eegi doonaa kuwa ugu saameynta badnaa ee kooxda kubadda cagta Real Madrid soo maray maadaama aan la soo koobi karin, balse kuwii ugu mudnaa ayaan ka soo qaadanaynaa. Booska tobnaad waxaa ku jira haliyada kooxda kubadda cagta Real Madrid marnaba aan la iloobi doonin Hugo Sanchez. Waa mid ka mid ah weeraryahanadii ugu fiicnaa ee ebed kooxda kubadda cagta Real Madrid soo mara. Hugo Sanchez waxaana lagu tilmaami jiray inuu ahaa haliyagii dhabta ah ee kooxda kubadda cagta Real Madrid. Waxa uu dhashay wadanka Mexico, waxaana uu ahaa mid xirfado iyo awood weyn u leh dhalinta goolashii, sidoo kale inuu kooxdiisa ka difaaco weerarada lagu soo qaado. Ninkan ayaana kooxda kaga soo biiray kooxda Derby Rivals. Waxa uu ahaa mid ka mid ah kuwa sida joogtada ah kooxda kubadda cagta ee Real Madrid u caawin jiray, waxaana kooxda uu dhaliyay 208 gool, 283 kulan uu saftay. Waana haliye weyn oo ay ku faanaan kooxda kubadda cagta Real Madrid. 7 xilli ciyaareed ayuu ku qaatay kooxda kubadda cagta Los Blancos-ka, waxaana uu kula guuleystay 5 jeer La Liga dalka Spain, 3 jeer koobka Super Cup, 1 jeer waxa uu la qaaday Copa del Rey, sidoo kale 1 jeerna UEFA Cup ayuu la qaaday waayihiisa kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Real Madrid. Waana mid ka mid ah haliyada kooxda kubadda cagta Real Madrid aan ka go'i doonin qulubta taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Los Blancos-ka. Sagaalaad waxaa ku jira Raul Gonzalez, waana mid ka mid ah kuwa ugu fiicnaa ee kooxda soo maray. Waxa uu ahaa weeraryahan cajiib ah kaas oo awood u leh abuuridda kubadda iyo sidoo kale xirfadiisa cajiibka ee xidigan u lahaa. Waana mid ka mid ah weeraryahanadii jiilkiisa ugu fiicnaa kuwii ugu saameynta badnaa. Si dhaqso ayuuna goolasha u dhalin jiray xidigan markii loo eego banaanka iyo gudaha. 18 ayuuna ku caanbaxay inuu goolasha ka dhaliyo. Sidoo kale waxa uu ahaa mid caan ku ah dhanka iyo tuuridda penaltiga. Waxa uu ahaa mid leh astaanta lagu yaqaan hogaamiye kooxeed, waxaana uu ahaa mid ka mid ah kuwii ugu fiicnaa ee kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Raul Gonzalez xirfadda bandhiga ayuuna xidigan ku mutaystay Nenasta El Ferrari amaba The El Ferrari, waxaana uu ahaa haliye weyn oo kooxda kubadda cagta Real Madrid soo maray. Raul Gonzalez Blanca ayaana 741 jeer u saftay kooxda kubadda cagta Real Madrid, 343 gool ayuu u dhaliyay xidigani. Waxa uu kooxda ku soo qaris geliyay 16 sano, waxaana uu kula guuleystay 6 jeer oo La Liga dalka Spain, 3 jeer tartanka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League, 1 jeer waxa uu kula guuleystay Intercontinental Cups, 4 jeer waxa uu la qaaday Super Cup. Raul Gonzalez ayaa ah mid taageerayaasha Real Madrid si qaas ah ay u jecel yihiin. Haddii aan sidoo kale eegno haliyada kooxdan soo maray waxaa ku jira booska 8aad Raymond Koba. Waxa uu ku guuleystay Ballon d'Or 1958, waxaana uu kooxdan ahaa mid ka mid ah jiilashii loo aqoon jiray Golden Generation-ka ee
wixii ka dambeeyay 1950kii Kuba ayaana ahaa mid xirfadiisa ay aad u sareysay isla markaana ahaa ciyaaryahan awood leh xirfad sarena lahaa 1956 ayuuna isagoo ka yimaaday dhanka iyo Faransiiska kooxda lagu magacaabo Reims ayuuna ka yimaaday waxa uu saameyn ku yeeshay kooxda kubadda cagta Real Madrid 3 sano uu kooxdan ku sugnaa Faransiiskan ayaana 2 jeer La Liga la qaaday 3 jeer European Cup-ka waayisa kooxda kubadda cagta ee caasimada ka dhisan ee Real Madrid Kuba ayaana mid kamid ah liyada kooxda kubadda cagta Real Madrid ay ku faanaan toddobaad Iker Casillas ayaa ku jira waana mid kamid ah goolahayaashii ugu fiicnaa ee kooxdan soo maray Iker Casillas ayaa ahaa mid ku caan ahaa badbaadinta kooxda kubadda cagta Real Madrid waxaana uu ahaa midkii ugu fiicnaa ee jiilkiisa Casillas ayaana ahaa mid awood badan lahaa markii loo eego labadiisii sano ee cajiibka ahaa ee ugu dambeysay waxa uu ahaa mid cajiib ah badbaadinta uu sameeyay waxa uu yahay xidiga labaad ee ugu safashada badan kooxda kubadda cagta Real Madrid Iker Casillas waxaana uu ka mid yahay liyada kooxda kubadda cagta Real Madrid aysan iloobi doonin 5 jeer ayuu la qaaday La Liga 3 jeer tartanka Champions League 16 sano ayuuna kooxdan ku sugnaa Iker Casillas ayaana ahaa mid kooxda aad looga jecel yahay isla markaana lagu maamuuso bandhiga cajiibka ee kooxda kubadda cagta Real Madrid uu la soo qaatay sidoo kale lixaad waxaa ku jira Roberto Carlos waa mid kamid ah kuwii ugu fiicnaa ee daafac ee kooxdan soo maray dhammaan waqtiyada waxa uu ahaa daafac weerartamo isla markaana awood badan leh waxaana Roberto Carlos 11 sano uu ku soo qarash gareeyay kooxda kubadda cagta Real Madrid waxaana uu la soo qaatay sanado guuleed Santiago Bernabeu uu ku sugnaa 4 jeer La Liga dalka Spain 3 jeer tartanka Champions League waxa uu yahay xidiga ugu safashada badan kooxda kubadda cagta Real Madrid ee ajnabiga ah 584 kulan ayuu u saftay Roberto Carlos ayaana ahaa mid ku caan baxay dadabka bidix ee kooxdan waxaana uu ahaa mid sameeya farsamooyin cajiib ah waxaana ninkan uu ahaa mid kamid ah kuwii ugu fiicnaa ee kooxdan soo maray Braziliankan ayaana kooxda la soo qaatay waayo qurux badan taageerayaasha kooxda kubadda cagta Real Madridna aysan ku iloobi doonin waxaana uu ahaa Clásico era Los Blancos ciyaartoydii loogu magac daray ee kooxda kubadda cagta Real Madrid ay isla heshay shanaad waxaa ku Jose Berry kooxda ka soo qaadatay kooxda Granada 1964 Berry ayaana ahaa mid la soo qaatay zaman guuleed kooxda kubadda cagta Real Madrid waxa uu ahaa mid taageerayaasha aad u jecel yihiin intii uu ku sugnaa kooxda kubadda cagta Real Madrid 15 sano ayuuna kooxdan ku sugnaa koobab badan ayuuna la qaaday guulo waaweyn Berry ayaana Real Madrid laga bilaabo 1964 iyo 1979 isagu uu ahaa kabtan 4 sano waxaana uu ahaa mid ku caan baxay hogaaminta xirfadda iyo sidoo kale caawinta kooxda kubadda cagta Real Madrid kooxdana aysan marnaba iloobi doonin waxaana uu kooxda u saftay 172 kulan isagoo dhaliyay 561 gool waxaana uu kooxda kula guuleystay 10 jeer La Liga dalka Spain 4 jeer koobka Spanish Cup sidoo kale 1966 waxa uu la qaaday European Cup-ka waxaana uu ahaa Berry mid kamid ah xidigii ugu fiicnaa ee kooxda kubadda cagta Real Madrid soo maray sidoo kale haliyada kooxda kubadda cagta Real Madrid waxaa ku jira booska afraad Frank Busquets waa mid kamid ah xidigii ugu fiicnaa ee kooxdan soo maray waana xidig ku caan baxay ku ciyaaridda lugta waxa uu ahaa superstar weyn oo kooxdan soo maray xirfadiisa Frank Busquets ayaana si fudud loo oran karaa mid kamid ah kuwii ugu fiicnaa ee ebed kooxdan u ciyaaray waxa uu ahaa mid ku caan baxay gambiska awoodda iyo tactical waxa uu ahaa mid lagu tilmaami jiray mucjisadii kubadda cagta waxa uu ahaa hogaamiyihii xulka qaranka ee Hungary waxaana uu la gaaray guulo aan la saadaalin karin xirfadiisa kooxda ayuu ahaa mid ku soo bandhigay qaab cajiib ah isaga oona kamid ahaa kuwii ugu fiicnaa ee soo maray kooxda kubadda cagta Los Blancos 5 jeer oo xiriir ayuuna la qaaday horyaalka 3 jeerna waxa uu la qaaday European Cup-ka waxa uu ahaa mid ku caan baxay dhankii weerarka La Liga ayuuna ahaa 4 xilli ciyaareed top score weyn si xiriir ayuuna u sameeyay waxa uu goolasho u dhalinayay qaab awood leh xaqiiqada ayaana ah inuu ahaa mid cajiib ah goolashiisa 242 gool laga bilaabo kulamadiisii kooxda u saftay 262 kulan Busquets ayaana door weyn ku lahaa guulihii waaweynaa ee kooxda soo gaartay waana super power kooxda soo maray isla markaana marnaba loobi doonin waana mid kamid ah dhammaan xilliyada kooxda kubadda cagta Real Madrid ciyaartoydii ugu fiicnaa saddexaad waxaa ku jira Cristiano Ronaldo waa mid kamid ah xidigii ugu fiicnaa ee jiilkiisa CR7 ayaana si fudud loo oran karaa mid kamid ah kuwii ugu fiicnaa ee waqtiyada kala duwanaa ee kooxda kubadda cagta Real Madrid Ronaldo ayaa kaga soo biiray kooxda Real Madrid kooxda Manchester United waxaana ay ku soo qaateen rikoor gaaray 80 milyan waxa uu ahaa mid u qalmay qiimahaasi bandhiga cajiibka ee kooxda uu la qaatay tan iyo bandhigiisa cajiibka ah iyo sidoo kale awoodda xirfadda iyo sidoo kale xidigan qaabkii uu ahaa hogaamiye dabiici ah kooxda ayuuna u saftay 368 kulan CR7 ayaana dhaliyay 381 gool waxaana uu ahaa mid kamid ah kuwii ugu fiicnaa 2 jeer ayuu la qaaday La Liga 3 sano ee ugu dambeysay waxa uu yahay
xidigan dhammaan waqtiyada top score kooxda kubadda cagta Real Madrid isagoo jebiyay rikooro kooxdan usoo yaalay waqti aad u dheer. Waxa uu sidoo kale yahay xidiga top scoreka ah ee dhanka Champions League Portugiiskan ayaana ah superstar weyn, waxaana uu kula guuleystay kooxda hal jeer La Liga, 2 jeer Champions League, 2 jeer Copa del Rey, 2 jeer FIFA Club World Cup, 2 jeer UEFA Super Cup, waxaana uu yahay CR7 mid ka mid ah kuwa ugu fiicnaa ee kooxda kubadda cagta Real Madrid soo mara. Waxa uu kooxda si fudud ugu noqday hogaamiye ay ku faanaan, isla markaana kooxda kubadda cagta Real Madrid hogaamiya maadaama ay badan yihiin haliyada kooxda kubadda cagta Real Madrid. Inagoo soo koobayna booska labaad waxaa ku jira Francisco Gento, waa ciyaaryahanka kaliya taariikhda kooxda kubadda cagta Real Madrid u sameeyay inay qaadaan 6 jeer European Cup-ka. Francisco Gento ayaana ahaa garab duulo isla markaana kooxda guulo waaweyn la gaaray taariikhda kooxda kubadda cagta Real Madrid. Gento ayaana loo yaqaanaa mid ka mid ah kuwii kooxda ku maanreebay isla markaana u sameeyay bandhigyada cajiibka ah. Waxa uu ahaa mid xawaare leh isla markaana kooxda bandhig cajiiba u sameyn jiray, waxaana uu goon jiray daqiiqado yar 100 mitir xidigan, waxaana bersekana uu goon jiray 10.9 sekan. Kubadda ayuuna si aad ugu xawaareen jiray. Gento ayaana ahaa mid aad u aqli badan isla markaana maareyn jiray kubadda, waxaana uu ahaa mid ka mid ah kuwii ugu fiicnaa ee kooxda kubadda cagta Real Madrid soo maray, isla markaana aan la iloobi doonin. waxaana uu ahaa mid ka mid ah goolayaasha cajiibka ee soo maray kooxda, ayuuna la qaaday Gento koobab badan oo gaaray 12 jeer La Liga, 2 jeer Copa del Rey, 6 jeer European Cup, 1 jeer ayuu la qaaday Intercontinental Cup, 2 jeer ayuu la qaaday Latin Cup, waxaana uu ahaa mid ka mid ah kuwii uu sareeyay ee kooxdan soo maray. Gento waayihiisa kooxda kubadda cagta Real Madrid waxaana lagu tilmaamaa mid ka mid ah ciyaartoydii aan la iloobi karin ee kooxda kubadda cagta Real Madrid. Booska koobaad waxaa ku jira Alvaro Di Stefano. Shaki ma leh awoodda Di Stefano waa mid aan la iloobi karin qeexidiisa, waxaana uu yahay dhaxalka kooxda kubadda cagta Real Madrid, waana mid ka mid ah kuwii ugu sareeyay kubadda cagta. Di Stefano ayaana ah midkii ugu fiicnaa dhammaan waqtiyada, waana sababta uu ugu jiro booska koobaad. Ma jiro ruux aan garanayn halyeeyga kooxda kubadda cagta Real Madrid Alfredo Di Stefano, waxaana ay kala soo socdeen kooxda kubadda cagta Barcelona 1953. waxa uu ahaa mid cajiiba, saxiixiisa ayaana kooxda ka dhigay mid xaliyay baahiyo badan oo kooxda ay qabtay. Xaliyay isdabjoog ayuuna kooxda guulo waaweyn la soo gaaray. tan iyo markii uu kasoo tegay kooxda kubadda cagta Barcelona, waxa uu noqday mid ka mid ah kuwii ugu fiicnaa ee kooxdan soo maray, waxaana lagu doodaa ka imaanshihii kooxda kubadda cagta ee Barcelona iyo saameyntii kooxda kubadda cagta Los Blancos uu ku yeeshay. Di Stefano ayaana dhaliyay goolal inaba aan la rumaysan karin. 307 gool ayuu dhaliyay 396 kulan u saftay, waxaana uu kula guuleystay koobab badan. Di Stefano ciyaaryahanka kaliya ee dhaliya goolal 5 finaal tartanka European Cup-ka, waxaana uu haystaa iskoorkaas cajiibka ah. Sidoo kale waxaa xusid mudan halyeey kale oo kooxdan soo maray isla markaana aan dhammaantood la soo qaadan karin, isla markaana aan la soo wada koobi karin, balse halyeeyada kale ee saameynta lahaa ee kooxdan soo maray waxaa ka mid ah Zinedine Zidane, Emilio Butragueño, Carlos Santillana iyo sidoo kale Santiago Bernabeu oo ah halyeey weyn oo kooxdan soo maray, isla markaana jamaahirta kooxda kubadda cagta Real Madrid ay aad u qadariyaan. waana ciyaaryahanka loogu magac daray gegida caalamiga ee Santiago Bernabeu. kuwaasina waxa ay ahaayeen halyeeyada kooxda kubadda cagta Real Madrid. intaas ayaan kaga gudbaynaa taariikh kooban ku saabsan kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaana markan eegi doonaa. Kooxda kubadda cagta Real Madrid waxay ka dhisan tahay dalka Spain, waxaana la aasaasay 6dii bishii 3 1902, taa oo la macnaa inay asaasan tahay 116 sano. waana mid ka mid ah kooxaha ugu qadiimsan ee qaaradda Yurub. magaceeda oo dhammaystiran waa Real Madrid Club de Football. waxay ka dhisan tahay dalka Spain, waxaa lagu naanaysaa Los Blancos, Los Merengues iyo sidoo kale Los Vinculados. waxay ku ciyaartaa midabada buluuga iyo cadaanka. kooxda kubadda cagta Real Madrid waxay ku ciyaartaa gegida caalamiga ee Santiago Bernabeu oo qaada 84,044 ruux, waana mid ka mid ah kooxaha ugu saameynta badan ee qaaradda Yurub. hadaan eegno koobabkii kooxda ay qaaday iyo sanadihii ay ku guuleysatay, waxaa ka mid ah 3 jeer ay qaaday Club World Cup, waana 2004, 2016, 2014, 2016 iyo 2017. 3 jeer ay qaaday Continental Cup, waa 1960, 1998 iyo 13 jeer. Champions League ayay ku guuleysatay, waana 1956, 57, 58, 59, 60, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, waana kooxda iskoorka 3 jeer inay ku guuleysato xiriira tartanka horyaalada Yurub iyo UEFA Champions League. 2 jeer ayay qaaday Europa League, waana 1985 iyo 1986. 4 jeer ayay qaaday UEFA Super Cup 2002, 2014, 2016, 2017. 3 Premier Division La Liga, 19 jeer Copa del Rey,
11 jeer Super Cup ay qaaday. Waxaa jira kooxaha hoos yimaada kooxda kubadda cagta Real Madrid waxaana ka mid ah Real Madrid C, Real Madrid Castilla, Real Madrid Youth iyo Real Madrid Youth B ama heerka labaad waana mid ka mid ah kooxaha ugu taariikhda weyn ee qaaradda Yurub. Haddii aynu eegno mid ka mid ah safafkii taariikhiga ah ee soo maray kooxda kubadda cagta Real Madrid. Kooxda kubadda cagta Real Madrid waxay soo martay marxalado aad u adag 1991 iyo 92 hal ciyaaryahan ay ku ciyaaraysay iyo tababare 1992 iyo 93 hal ciyaaryahan iyo tababare ay kooxdu ku sugnaa waxaana ay ku soo ciyaaraysay ilaa iyo xilli ciyaareedyo aad u badan waxaana kooxdu 1906 iyo 1907 laba ciyaaryahan iyo macallin ayay kooxdu ku ciyaaraysay mar ay saddex soo noqdeen waana 1918 iyo 1919 saddex ciyaartoy iyo macallin ayaana kooxda ku sugnaa mar ay shan soo noqdeen waana ay soo tariyeen mar walba markii ka dambeysay mar ay afar ahaayeen waana 1915 iyo 1916 shan ayay mar ahaayeen waana 1921 iyo 22 toddoba ayay mar ahaayeen waana 1923 iyo 24 mid ka mid ah xusuusta kooxda kubadda cagta Real Madrid ciyaartoydii soo martay ayaanu eegi doonaa waxaanu eegaynaa xusuusta safka kooxda kubadda cagta Real Madrid ee xilli ciyaareedka 1998 iyo 1999 waxaana uu ka koobnaa safka kooxda kubadda cagta Real Madrid 31 ciyaartoy iyo macallimiin waana xilli ciyaareedka 1998 iyo 1999 xusuusta safkii xilliga ee kooxda kubadda cagta Real Madrid kooxda kubadda cagta Real Madrid xilliga goolahayaasha waxay ahaayeen Almanza oo Spain ahaa Albano Bizzarri oo Argentina ahaa Contreras oo Spain ahaa Bondo Langer oo Germany ahaa daafacyada xilliga waxay ahaayeen Dorado oo Spain ahaa Fernando Sank oo Spain ahaa Airo oo Spain ahaa Ivan Campo oo Spain ahaa Cranca oo Spain ahaa Christian Bonucci oo Italia ahaa Roberto Carlos oo Spain ahaa Rogers oo Spain ahaa Rio oo Spain ahaa Sanchez oo Spain ahaa iyo Tena oo Spain ahaa dadka dhexe xilliga waxay ahaayeen Alvaro oo Spain ahaa Guti oo Spain ahaa Jaime oo Spain ahaa Roberto Gerni oo Croat Christian Carambu oo Francis ahaa Fernando Redondo oo Argentina ahaa Xavi oo Brazil ahaa Clarence Seedorf oo Netherlands ahaa weeraryahanada xilliga waxay ahaayeen Bridget Mitrovic oo Montenegro Morin Morantes oo Spain ahaa Breko Ondjokovic oo Serbia ahaa Raul oo Spain ahaa Fokar Sukar oo Croat ahaa Tote oo Spain ahaa waxaana xilliga macallin u ahaa Johan Tuchel oo Wales ahaa waxaana caawinayay Grando oo Spain waana xusuusta kooxda kubadda cagta Real Madrid safkeedii 1998 iyo 99 guniga bagba in soo gaarnay barnaamijkeena xogaha iyo xaqiiqada isboortiga kooxda kubadda cagta Real Madrid hadii aynu qiimeyn ku saabsan taageerayaasha dunida 80 kamid ah waa taageerayaal ku inta kooxda kubadda cagta Real Madrid 10 kamid ah waa kuwan halka 10 aan dhexaad yihiin adiguna nala soo qiimeey Soomaaliya loo taageero badan mise iyaga ku badan dadka ugu badan ee taageera ma dhalaan ayaa u badan ma dad dhalinyaro ah mise dad hore u bato oo daa ayaa taageera kooxda kubadda cagta Real Madrid ma sanadii gibahan barnaamijkii intaas ay ku soo gabagabeynayaan xogaha iyo xaqiiqada isboortiga oo macluumaad iyo xogo ka dahan idin kaga qaadnay tan iyo kooxda xigta intaan dib u kulmi doona dhamaantiin isku duuban sidaas iyo nabadgelyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh